بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا إن وركن دقة وكسر دعي مقالة هرجيسة إن كذي مركي حسبي أوعد وحفلتكم قبسنا وتيل كي الله كونفرت مقالة هرجيسة أو ليرادو أدميس أي كده عليه ربشدي إسلا عوضا تصور ربشدها سي أي كسر بحياة ورد دقة وشيء هي إن الكاسي وكسرنا فيصل على الورابع haddaba hotelkan ku yaala koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxa ka dhashay buuq iyo sawaxan taasoo booliiskuna ay gacanta ku dhigeen nin goobta ku sugnaa oo looga shakiyay inuu sitay walxaha qarxa kadib markii qaar ka mid ah shacabku ay booliiska ku wargeliyeen inuu xafladu ku sugan yahay nin laga shakisan yahay inuu isqarxinayo taasoo isla hal mar ay shacabkii isla kaceen meeshina ay ka dhalatay buuq sawaxan yaacitaan iyo isku urur haddaba ninkan sawirka idinka muuqda ayaa waxaa gacanta ku dhigay booliiska taasoo markii baaritaan lagu sameeyay laga waayay wax xuba oo goobtaas uu la soo galay iyadoo ninkan qaar ka mid ah shacabkii xafladda ku sugnaa ay sheegeen in uu ninkan yahay nin shaki ay ka shakiyeen markii ay booliiska ku wargeliyeenna uu booliiskii qabtay ninkaasi inkasta oo markii ay booliisku gacanta ku dhigeen askarta halkaa joogtay oo tirayar awgeed ay shacabku ku soo qamaameen taasoo halkaa ninkaa nabar loogu geystay isla markaasna booliisku ay ka qaban kari waayeen shacab cadhaysan oo markaasi xilligii hore u fikiray in ninkan lagu hayo walxaw qarxa qaar ka mid ah haddaba wararka hordhacee iminka soo baxaya ayaa sheegaya in ninkan laga waayay wax hub ah ama wax muujinaya inuu ninkani waday wax falal amni darro ah isla markaasna keliya laga helay baasaboorka Soomaaliya ID cardkiisa jeebkiisa ninkan ayaa sida la sheegay ku hadlayay luqadda koonfurta Soomaaliya lagaga hadlo ama lahjada koonfurta Soomaaliya qaybo kamid ah gobolada koonfurta Soomaaliya iyadoo markii dambena la dejiyay shacabkii kadib markii la ogaaday inaanu ninkan sidan wax xuba wararkii hordhacay ee soo baxay markii koobaad oo ku faafay meelo kamid ah baraha bulshada ayaa la sheegay inuu ninkani isqarxinayay laakiinse wararkii rasmiga ahaa ayaa noqday in ninkan laga shakiyay isla markaasna aan lagu qaban wax isqarxina gudoomiye Faysal Cali Waraabo joogay madasha hotelkan Adamis ee ku yaala koonfurta magaalada Hargeysa ayaan isagana wax dhibaato ah ka soo gaarin marka laga reebo buuqa ka dhashay hotelkaas oo qasay xafladii oo markaasi habsami u socotay haddaba ninkan oo imika booliiska gacantooda ku jira ayaanay booliisku ka hadal wax lagu hayo inkastoo dadkii goobjooga ay sheegayaan in ninkan laga helay kaliya baasaboorka Soomaaliya ID cardkiisa oo ku jira jeebka isla markaasna aan laga helin wax xuba oo muujinaya in uu waday fal amni darro oo ka dhacayay halkaasi xafladda ayaa waxa qabsanayay xusbiga oo ciiday mucaaradka Soomaaliland ee hogaamiyo Faysal Cali Waraabe isagoo hotelka Adamis ku yaala koonfurta magaalada Hargeysa oo Faysal markaa uu goobjoog ahaa ama uu xafladda ka soo qayb galay dadweyne u badan dhalinyaro iyo waayeel ayaa ka soo qayb galay xafladda inkastoo la sheegay in ninkan nabar soo gaareen kadib markii ay shacabku ku soo qamaameen isla markaasna ay maqleen dhawaaqa ah ninka qabta taasoo nabar culusna ay soo gaareen ninkan haddaba wararka ayaa waxay sheegayaan in ay xafladii dib u bilaabantay daqiiqado yar kadib taasoo rabshadiina ay ku soo gabagabowday si nabad ah in ay aanay cidna waxba gaadhin marka laga reebo ninkan oo laga shakiyay oo si kama ah dadka qaar ka mid ah ay nabarro kadiisa ugu dhufteen warkan oo ah wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay magaalada Hargeysa ayaa wuxuu sheegayaa in ninkan imika uu gacanta booliiska ku jiro waxaana laga warsugayaa booliisku waxay ka yiraahdaan ninkan Soomaaliga ah ee laga shakiyay isla markaasna buuqa ka kiciyay xafladda inkasta oo buuqa aan la oran karin isaga kiciyay laakiin sida shakigii laga shakiyay uu kiciyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.